kulankan oo guddiga dib u heshiisiinta qaranka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen sidii loo joojin lahaa dagaalada sokeeye ee ka soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka kaasi oo saameeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka jiraan dagaaladaasi waxayna baaq u direen maamulada deegaanadaasi waxgaradka aqoon-yahanada nabadoonadu inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa colaadaha ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolada dalka si loo istaajiyo dhiigga walaalaha ee daadanaya guddiga ayaa xusay inay ka qayb qaadanayaan dadaalada nabadeed ayna xubno ka tirsan u dirayaan deegaanada Hiiraan iyo Galgaduud ee lagu dagaalamay si ay ugu qayb galaan dadaalada nabadeed xogayaha maamulka guddiga dib u heshiisiinta qaranka Sayid Cali Cabdi Muxiidiin ayaa ka hadlay ujeedada kulanka shirkana maanta waxa ka jira xarunta guddiga dib u heshiisiinta qaranka shir jaraa'id oo loogu baaqayo dagaalada sokeeye ee ka socda gobolada iyo degmooyinka dalka qaar oo runtii guddigu aad uga xanuunsaday arintaasi aad u dhibtay waxaan ku soo dhaweynayaa kelmadihii ku habboonaa si uu u yiraahdo baaqna loogu jeediyo gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka Ismaaciil Macalin Muuse oo ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay waxgaradka culimada diinka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanadaasi inay u kacaan sidii nabad loo dhaxdhigi lahaa dadka walaalaha ee dirintu ku dhexmarayso deegaanadaasi guddigu wuxuu ka codsanayaa waxgaradka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool عقاشة علماء الدين يوحجرت كصومالية ديجان نداس يدبعتوا كأوجنت هيكونول وحنسكر سوني له أو صومالي نمله أو إسلام نمله وقعتنا هنا إني يعني ولا على حاس يجا أدوي إني وحجرت كصومالية درس كله أما كل جوجا أنا وخبا إني كم مشغول سنين إلى حد أنا أنكر رقم إني كنتي hawl badan ka hayaan in degdeg loo joojiyo qolada colaa saaxiibada ahalka ah ee colaadu ka dhaxaysana maqlaan nasteexaynta walaalaha Soomaaliyeed deegaanka la ah iyo kuwa dabcan socotada ugu tagi doona intaba warkooda inay maqlaan ayagoo xasuusanaya waxa ay isku yihiin waxa ay isku ayagoo xasuusan waxaan rabaa inaan intaas nilaa runtii way ku habooneed hadda lafteedana kama rajaliin in dhanoo rajaynayno inaan loo baahan oo waxgaradka Soomaaliyeed in samajaclayaasha ku howlan Ilaahay inuu aqbalo taladooda oo dhaqso u joogsadaan rajaynaynaa haddii ay intaas oo sii socdana kulli guddigu wuxuu noqon doontaa inuu laftiisu u diro erga nabadeed oo fariinta guddiga gaarsiiya inta awooddu saamix karto oo la tagi karo موسى عثمان أبتو تلفزيون كغرنك الصوماليات مقدشو